Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada SMCC. Waxaan ka hadlaynaa maanta cunooyinka ku habboon bukaanka karantiimada ku jira. Haddii aad isku aragtay calaamadaha COVID-19 ama koronaha, dabcan waxaad karantiimo ku jiraysaa 14 maalin. Haddaba 14kaas maalin maxaa u habboon qofka karantiimada ku jira in uu cuno si uu u yeesho difaac dhameystiran? Hay'adda Caafimaadka Adduunka ayaa soo saartay ama shaacis hannaanka cusub ee cunitaanka caafimaadka leh, kaas oo loogu talagalay bukaanada qaba ama looga shakiyo cudurka safmareenka ah ee COVID-19, kuwaas oo ku jira xaaladda karantiimada. Ujeedka looga gol leeyahay waa in la adkeeyo ama kor loo qaado difaaca jirka aadanaha. Cunno waliba oo difaaca kor u qaadaysa waxay u fiican tahay caafimaadkanaga. Waxay u fiican tahay caafimaadka aadanaha oo dhan. Maxaan qaataa ama aan cunaa waqtiga karantiimada? Haddaba maxaan cunaa waqtiga karantiimada? Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga koriyo cudurkan safmareenka ah, sidoo kalena dalkeena iyo bulshadeena oo dhan Allah ka koriyo. Marka hore, cab biyo badan. Biyaha waxa ay naga caawinayaan in jirkeena uu noqdo mid qoyan, hydrate. Mar waliba waxaad maqashaa waa in aad ahaataa hydration ama hydrate, qof qoyan. In aan hydrate noqono ama uu jirkeena qoynaado waxa ay ka qayb qaadanaysaa in ay yaraato heerkulka qandhada. Sidoo kale xasuusnaa calaamadaha cudurka ugu caansan waxay ahayd qandho. Waxa ugu badan ee qandhada aan ku yareyn karno waa in aan cabnaa biyo joogto ah, biyo badan. Biyahaas oo naga caawinaya in dhiiggeena si fiican u wareego, sidoo kale ay yaraato heerkulka qandhada. Si kastaba ha noqotee, markii loo eego khubarada barnaamijka cuntada adduunka ee WFP World Food Program, waxa ay leeyihiin markii la arko bukaanka ama qofka karantiimada ku jira in uu jirkiisa firfircooneen ama uusan ahayn qof dhaqdhaqaaq badan sameynayo oo hal meel ku jira, xaaladaas jirka waxaa ku yar in uu qofku haraad dareemo, macnaha biyo badan uma baahanaysid. Taasi waa sababta koowaad ee qofka loogu boorinayo in uu biyo badan cabo. Yacni in maadaama uusan oon ku qaban aadan guriga iska jiifin, laakiin waxaad u baahan tahay in biyo badan aad cabto. Ugu yaraan maalintii inaad cabto 8 galaas ilaa 12 galaas inta u dhaxayso. Qodobka labaad oo lagaaga baahan yahay waa in aad ku dadaashid cunida fitamiin C-ga. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay in fitamiin C-gu يعني sida liin dhanaanta vitamin C waxaa kamid ah liin dhanaanta waxaa ku jira maadada vitamin C yani bulshadeena waxaad u maleysaa in ay ayaga daawooyin isku qoreen oo sida liinta, xabsoodada, sanjabiilka, basasha, waxyaabahaas oo kamid tahay dabcan guud ahaan caafimaadka way u fiican yihiin aadanaha. sidoo kale vitamin C iyo sanjabiisha labadaba waxay firfircooni siiyaan in si fiican uu sanbabada u shaqeeyo, gaar ahaan vitamin C. sidoo kale qofka karantiimada ku jira waxaa lagula taliyaa in uu qaato kaniiniga vitamin C-ga. Vitamin C-ga waxa uu ka caawinayaa in uu si fiican u shaqeeyo sanbabkaaga. Qodobka saddexaad waxaad u baahan tahay inaad qaadato cunno dheellitiran. Dabcan waxaad ku jirtaa karantiimo, waxaad ku jirtaa meel go'an, aadan dad waxba la wadaagaynin oo adigana aad dhaqdhaqaaq badan aadan samayn karin. Taas waxay qofka ka dhigaysaa in uu cunno badan uusan cuni karin. Laakiin waxaa lagaaga baahan yahay maadaama aad xanuunsan tahay in jirkaaga cunno ku filan aad siiso. waliba cunno dheellitiran marka aan ka hadlayno waxa ay ka dhigan tahay carbohydrate, protein, mineral and vitamins iyo fat oo isku dheellitiran in qofka qaato. laakiin carbohydrate-ka maxaa kamid ah? Carbohydrate-ka waa bur iyo bariis iyo sokor, dhammaantood waxay soo galayaan carbohydrate. bur iyo bariis yani baastada bur bay soo hoosgalaysaa, bariiska, laxooxda, rootiga, dhammaan waa carbohydrate. marka inaadan kaas isku badan ayaa loo baahan yahay. cunooyinka borotiin kale waxaa soo hoosgalaya digirta, ukunta, hilibka, digaaga, guud ahaan waxay soo hoosgalayaan cunooyinka laga helo borotiinka. sidoo kalena minerals and vitamins waxaad ka helaysaa qudaarta. guud ahaan miraha iyo qudaarta waxaa laga helaa minerals and vitamins. Allah ayaa marka horeba adduunkan noogu diyaariyay dhammaantood waan isku dhameystiran yihiin. qof walbana waxaa la rabaa inuu hal dhinac wax ka cunin uu isku cuno wax walba inta uu heli karo. qodobka afraad ama cunnada afraad ama tilaabada afraad ee laga rabo qofka karantiimada ku jira waa in aad joogteysaa. tan waxaan ka wadnaa maanta oo kale waxaa laga yaabaa qofka in uu quraacdo, qadada uu ka boodaya, wuxuu leeyahay baahi ima hayso. sidoo kale wuxuu cashadii marka la gaaro wax yar oo yani aanan casho badan maadaama aan la qaadi karin wax yar ayuu cunaya. subaxii baa la gaaraya, subaxii uu quraacda 4 saac oo kale iska cunaya. haddana qadada wuxuu leeyahay qada ma cuni karo 4 saac baan quraacday. yani saas inaad ku wadid lama rabo maadaama aad karantiimo ku jirtid. difaaca jirkaaga waa in aad ku dadaashaa. quraacda waqti go'an u samaysatid, sidoo kale qadada waqti go'an u samaysatid. sidoo kale haddii aad habeenka casho qaadan kartid inaad waqti go'an u samaysid. taas waxay ka saacidaysaa in si daily ah oo difaaca jirkaada uu u kordho ama uu mar walba diyaar ugu jiro heegan.
laakiin haddii weerar lagu soo qaaday adigana aad sahayda ka yareyso marka ugu dambeyn u fiirso difaaca jirkeena haddii uu isdhimo waxaan fursad siinaynaa cudur waliba in uu na soo weeraro cudurada oo dhan qofka bini'aadamka waxay fiirsadaan marka uu difaaciisa daciifo difaaca jirkaaga marka waxaa lagaga baahan in aad adkayso mahadsanid aad ayaad u mahadsan tahay haddii aad halkan soo gaartay waxa aan kaa codsan lahayn inaad ciwaanka asxaabtaada sii gaarsiiso sidoo kalena ku soo biirto janaalka